السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد كوبعي سوفت وير آلابات قبرتي كورسوي كلا دوان كورس كيني كويك بوك ayaa noo saaday wuxuu marayaa casharkeeni lixlaatanaad. casharkan wuxuu ka hadlayaa closing statement, xisaab xidh buu ka hadlayaa. marka aad xisaabihii aad soo xisaabisay shirkadu marayso sanadka qabaqaabiyadiisa ama sanadka marka ugu dambaysa waxa la sameeyaa xisaab xidh wax loo yaqaano. marka si aad u sameyn lahayd xisaab xidh baanu kaga hadlanaa casharkan. markaa kusoo dhawaada dhinaca practicalka. dhinacayna practicalka aan usoo noqono. marka ku horeysa xisaab xidh markaad sameynaysid waxaad ogaanaysaa reportkaaga horta waxa kugu jira, waxaad faa'iiday, waxaad khasaartay. horta waxaad tegaysaa profit and loss standard, then xisaab xidh horta waxaan ku sameynaya waxaan akoonada halka igu jira baan xisaab xidh ku sameynayaa. marka waa akoonada ku discresan yihiin inta lacagood kugu jira. marka haga income kaasoo kale waxay ku jira service revenue waxay ku jira inta expenses kana waxay ku jira 10,000. marka labada akoon baaba ii shaqeynaya hadda kaliya. marka labada akoon baan xidhaya oo 00 baan ka dhigaya. marka sida aan naga dhigi lahaa baan sameynayaa. horta markaan akoonka xidhayo waxaad tagaysaa company, waxaad kasii tagaysaa make channel journal. make channel journal marka tagtay aan weynaysiiyo halka waxaan ku qoranayaa kii ugu horeeyay maxaa meesha igu qornaa. waxay igu qornaa surface revenue. surface revenue baan qoranayaa oo surface revenue imisa maray. halkaa wuxuu marayaa surface revenue kana soo galay 103,500. waxaan kasoo qaadanay reportkeeni. haddaan dib u reportkeeni u eegno 103,500 surface revenue oo waka surface revenue intaasuu marayaa 103,500. then aan iska soo kala gareeno halkaa waxaa ku qoraysaa returning earning. wakaa ay soo baxay returning earning baad ku qoraysaa halkaa. marka returning earning halkaa ku qoratid, then returning earning baan dib ugu qoranaya halkaa markaan kala skoreynayo. halkaan waxaa ku qorayaa akoonka kale ee expenseska. marka akoonka koowaad service revenue waa income oo dadka akoontka garanay. akoonka labaadna waa expense oo expenseskana waa 10,000 buu marayaa. halkaan waxaa ku qorayaa halkaana return earning waxaa ku qorayaa halkaa 10,000 1 2 3. kana waxaa ku qoranayaa wage expense buu marayaa. halkaan waxaa ku qorayaa 10,000 1 2 3. haddeer labadii xisaabood saasay ku xidhan yihiin safe and close down. hadda reportkeeni haddaan eegno xisaabteeni way xidhantayba. waka xisaabteeni waxay maraysaa wada 00. xisaab xidhka marka la sameynayo asxaabay saasaa loo sameeyaa. akoonada uma kala duwan. akoonka income-kaad horeysiinaysaa, markaad kadib return earning baad qoraysaa, markaa wage expenseskaad ku xisaysaa. saasaad ku dhamaysaa asxaabay. wassalaamu calaykum waraxmatullahi.